علماء الدين dhaqanka beelweynta mursado iyo waxgarad kale oo shir jaraa'id ku qabta magaalada Muqdisho ayaa waxay kaga hadleen xarig jirdil loo geystay iyo waliba xukun dil toogasho oo maxkamadda Puntland dhawaan ay ku riday 8 dhalinyaro oo ka ganacsanaya deegaanada Galmudug. odayaasha ayaa hoosta ka xariiqay in xukunkaasi uu yahay mid cadaalad darro isla markaana wixii cawaaqimo ay ka yimaada ay eedda dusha u saaran tahay mas'uuliyiinta Puntland. duqowda dhaqanka beelaha mursada ayaa baaq u diray madaxda dowladda dhexe sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta iyo duqa Muqdisho waxayna sidoo kale baaqo kala duwan u diray maamulada Puntland iyo Galmudug sida madaxweyne Dani iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye iyo mas'uuliyiin kale. maanta oo ay taariikhdu tahay 8 bishii 7 2021 halkan waxaan ku qabanay shir jaraa'id kaasoo ku saabsan cabasho ama maaragtay ka xumaasho ama maaragtay ka dhiidhin ay ka dhiidhinayaan ama aan ka dhiidhinayno khaladka ka socda Puntland khaasatan deegaanka la yiraahdo Gaalkacyo qaybteeda waqooyi arrintaasoo ah mid aan loo dul qaadan karin. waxaan rabnaa inaan ummadda meel kasta ay joogto aan ogeysiino waxa meesha ka socda iyo cawaaqibka ay reebi doonto intaba inaan ummadda ogeysiino ayaan u baahanaa. waxaa jira 6 nin oo dhalinyaro ah oo ganacsi u tagay Gaalkacyo waliba dhinaca maaragtay koonfure 6daas iyo ragga la jira waxay meesha u joogeen ganacsi. waxaa la og yahay inay ka ganacsan jireen hilibka xoolaha nool la shaqay jireen gabar meesha degan markii dambana ay gabadha kala tageen gabar kale ay ganacsigii ku wareegeen masayr iyo khilaaf iyo maaragtay deegaan ahaan u cagajuglayn ayay gabadhii waxay ka shaqaysay inay deegaanka ka afduubato gabadhaasu dhalinyaradii ganacsiga ahaa waxayna u adeegsatay dad kale oo ama markaas ciidan iyo maamul sheeganaya waxay u adeegsatay gabadhaasu oo nimankaas soo afduubay oo xiray oo jirdilay nimanka la kala yiraahdo Muumin Cabdi Shire iyo Qadar Ogaadeen. nimankaasu 7 bilood ayay dhalinyarada gacanta ku hayeen guri u khaas oo aan nidaam ahayn ayay ku hayeen si daranna way u jirdileen. ummadda waxaan ogeysiinaynaa ciqaabta ay nabadaas nin u geysteen nimankaas oo aan maaragtay meel nidaam ay ku bannaantaa aan la arag madani iyo maaragtay mid xisiiba aan ku bannaanayn. waxaan nahay dadkii dadkaasu ka dhasheen oo ay ka soo jeedeen oo ay u shaqo tageen ummadduna waa isdhex taallaa meel kasta. sidaas awgeed falka labadaas nin sameeyeen ee ka bacdina ay 7 bilood kadib u kaashadeen ninka la yiraahdo Muumin Cabdi Shire walaalkiis oo maxkamadda jooga oo Cabdullaahi Cabdi Shire la yiraahdo in nimankii lagu soo wareejiyo sida aan ognahay ee ganacsiga ah ee qaab darrada ah nimankii looga dhidhiyay arintooda ee loo xiray in isaga loo wareejiyo isla markaasna 7 bisha si dulmiya ah oo ugu xukumo dil toogasho ah. taasna aan u aragnay isirsifayn maalmahan ay wado deegaanka iyo dadka degan Puntland. isirsifayntaas dadkuna meel walbay degan yihiin qof walbana way sameey kartaa falka noocaasa. waxaan rabnaa annagoo ah beesha mursade deganna koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya waxaan cadaynaynaa falkaas isaga ah maanta wixii ka dambeeya markii aan cabasho hore u sameynay lana hadalna maamulka gobolka ee meeshaas dad badan oo cuqaala la hadalnay waxgarad aan la hadalnay arrintaas iyadana ay wax ka bedeli weysay nimanka isla dhashay ee ah in reer Cabdi Shire ee ninna yahay Muumin Cabdi Shire ninna uu yahay Cabdullaahi Cabdi Shire arrinta ay ku dhaqaaqeen maadaama wax laga bedeli waayay annagu beesha mursada waxaan go'aan ku gaarnay falka ay sameeyeen ha ku tashadeen mar haddaan wax laga bedelayn ha ku tashadeen taariikhdu gala waana fal loo geystay beesha mursadana waa dad jira ummadana wax la wadaaga dulmina annagu ma qaadanayno raallina ka manihin. waxaan rabnaa dadku dembi wuu geli karaa waana lagu qaadi karaa dad naga dhinta ama dad la xira ama dad la xukumaaho noo kow ma laakiin waxaan qaadan laanahay dulmi. waxaan u sheegaynaa cid kasto arrintaas ku leh falka meeshaas ka dhacay oo nimankaas Qadar Ogaadeen iyo ninka la yiraahdo Muumin Cabdi Shire ay sameeyeen ee jirdilka ah ee backu gubidda ah ee cidiyaha la iska fiiqa ah ee sheega wax uunan ahayn qofka lagu khasbay falka isaga ah mursada waxa waaye raalli kama aha mana u dul qaadanayo. maantana hadal way ka soo tagtay arrinta iyada ah ama dila ama daaya taariikhday ku jirtaa mursada maalinteeda iyo goorteeda
dadkaas waxaa laga dhaxlayaa cawaaqib xumo taariikhdeedu socotaa laga dhaxlaa ma doonayn annagoo waaweyn oo odayaala oo ciro leh inaan ku hadalna waxyaabo laga soo gudbay laakiin waxaa kallifay inaan maanta saan u hadalnaa waa dadka meeshaa jooga mas-uuliyadda haysta magaca ku leh ayaa kallifaya ma qarsan karno in si dulmiya dad lagu xasuuqo lagu laayo dadku way nala joogaan wanaag iyo sharaf aan uga shaqaynaa meesha ay joogaanna wanaag iyo sharafkaasay mudan yihiin haddii la waayana wixii laga dhaxlo sayi'aadkaas iyagaa maalkooda qaadana wabilaahi towfiiq intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa soomaalidana dhegaysanaysa waa salaamaynaa aadna waa ugu mahad celinaynaa warkeennuna inuu meel kasta gaaro waa rajaynaynaa midda ku xigta waxaan u mahad celinayaa nabadoon cabdiraxmaan sanweyno iga horreeyey hortay hadlay hadalkiina quruxdiisa yidhi waxaan rabaa inaan ogeysiiyo kow arrintan puntland ka dhacday dawladda dhexe inaan kowdii ogeysiiyo waa rabaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda baarlamaanka kan hoose iyo kan sare labadaba inaan ogeysiiyo waa rabaa intaa kadib waxaan rabaa inaan la hadlo puntland markaad maqasho markiiba waxaa kuu soo kor maraya qabiil la yidhaahdo majeerteenna qabiilada soomaaliyeed uu ka mid yahay runtiina waxaan ka qabnaa nimankaas majeerteen aad iyo aad iyo aad ayaan cabasho uga qabnaa haddii soomaalinimadu jirto kow waxaan ogeysiinaynaa cabashadeenna salaadiinta cuqaasha waxgaradka haddii lay kuu roon deegaanada puntland waxaan ku xejinaynaa haddii lay kuu roon yahay maamulka puntland ama baarlamaan ha ahaado ama wasiirra ha noqdo ama madaxweynaha ou haddii lay kuu roon dani ha noqdo intaa waa ogeysiinaynaa waxaan ogeysiinaynaa maamulka ka dhisan gaalkacyo barasaabka sanyare ayaan ogeysiinaynaa iyo taabelayaashiisa la shaqeeya nabad sugidda haddii lay kuu roon boliiska waxaasoo dhan kuwa haystana waa ogeysiinaynaa waxaan ogeysiinaynaa haweenka puntland qayb weynay ka yihiin haweenka puntland waxaa dawladda wax weynay ka yihiin iyagaaba marmar haddii lay kuu rooy marka sidaa darteed walaalayaal majeerteenow 30 sano ayaa dhibkaanu socday badda gudaheeda waxaad ka samayseen qabuuro la yidhaah qabuuraha hawiye qabuuro la yidhaah qabuuraha hawiyaad ka samayseen dad iska masaakiinoo hamaaqa ayaad galabtii doon saarteen subaxdii doontiioo faaruq ahaa timid meel la yidhaah qabuuraha hawiyaa lagu daadshaa berrigiiyaad ka samayseen qabuuraha hawiye oo aad haddii lay kuu reen maalin walba 100 ku dilaysin waxaas aad arkaysiin daday ka soo tooseen agtooda waana xanuunsanayaan laakiin fidnaa laga hor imaanayaa fidno waayo waxa la diidayaa majeerteenow waxaan idiin sheegaynaa bini aadanku dadaa jira aan caqligoodu shaqayn ilaa ay hortooda wax ka arkaan annagu waxaan idinku guddigaynaa hadda soomaalinimo dad wax walba ka dhexeeyaananna qabiilo wax walba ka dhexeeyaananna haddaad tixgeli weysaan dadkeenna haddaad ka tixgeli weysaan meeshaas wixii ka yimaad idinkaa ka mas'uula dadkaad laynaysiinuna dadda kana idiin gala maaha 30 sano waxaad laynaysiin dad tahriiba iyo dad baalashlayaala iyo ilmo yaryaroo hiliblayaala war waxaasba waadan ka xishoona waxaasu maxay tahay niman maamul sheeganaya oo qabiilo sheeganaya mase wixiinoo dhan waxay ku kooban yihiin waxa yaryarkaa oo facebooka aad ka sheegtiin miyaad ku kooban tihiin war ma waada dad xur ahayna maxay tahay wax carruurta yaryarkaa ood maalin walba haddii lay ku biraynaysaan haddii lay ku ro magaciisiga waa al-shabaab waa terroriste waa magaciise maya ma akhrisanayno wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ilaahay xaqa lagu caabudan ku dhaartaye ninkii la doono ayaa al-shabaab noqon kara ninkii la soo qabto geedkaas la hoos geeyo al-shabaab waaye nin kastaa dhihi kara marka haddaad nagu leynaysiin aad inta noo seexateen haddii lay kuu roon yahay wallaahi colaaddaad ku fiican tihiin nabad waxba kuma lihidiin markaan nabad niri dadku hays dhex maro ayaa dadkii baabbaha ka dhigteen walaalayaalow waxaan idiin sheegaynaa dadkii horoo disheen kuwaasu waa tageen waxa damboo hadda gacantiinna ku jira badbaadiya dadku ways dhex joogaa dadku ways la jiraa dadku waa wada deris meel walbaad daadsan tihiin kuwa annaga waxaad leynaysiin waa baalashlayaashii kuwa cuqaaloo tujaaraha noo jooga halkaan oo naan far ku taagin marka walaalayaal raalli ahaada dadka nabadgeliya haddaad nabadgeli weysiinna xeradiinnaad ka garanaysin caqligiinna markaa imaanaya soo waxaad garateen maaha waa mahadsan tihiin waxaan la hadlayaa nimanka la yidhaha galmudug
galmudug maxay ka shaqaysaa iyadu galmudug ma waysan maamul ahayn mase waa bodyguard Puntland leedahay bodyguard Puntland leedahay miya fiqiyaan la hadlayaa waxaan la hadlayaa ninka la yiraahdo Cabdi Qaybdiid iyaga waaye waxa ilmaha laayay oo ilmaha gudbinaya oo qofkay qabtaan ku fataalayo geynaya Puntland u geynaya war ma waadan xabsi lahayna ma waadan hadii lay ku xukun lahayna ma waadan wax jira ahayna ma waadan maamul lahayna maxay tahay waxaad sameeynaysan waryaa cunug hadii galmudug laga xiro oo Puntland lagu xiro waa in galmudug loo soo celiyaa lagu maxkamadeeyaa way bal waxaad noo sheegaysiin fiiri dadku maxoolaa dadku waxaad noo sheegaysiin fiiri aad u mahadsantihiin arintaas oo dhan waa ka digayaa Soomaaliya ay fidnayaan la bilaabin ilaahan idinku dhaariyay fidnayaan la bilaabin fidna ninkii bilaabay aabaleeda ninkii bilaabay aabaleedahay aad u mahadsantihiin oo dhaxdiina ka shaqaysanayo Soomaalidu way kala shaqaysataaye inta la aruuriyo la garaaco la jirdilo la yiraahdo ma taqaanaa waa shabaab maxkamadan saarna la yiraahdo waa arin Soomaalinimada akhlaaqda sharafka wala dhaliyada waxa dhan Soomaalinimada ceeb ku ah bajarteen wuxuu sheegtaa inuu yahay dawlad ama oo Soomaali u soo talin jiray oo niman boqorro iyo waxbay sheegtaan laakiin maanta waxa ay cadaatay nimanka boqorradii ma ka dhamaaday ma aqli beelan ma aqliyeena lahayn oo faan iyo waxaas ay ku jiri jireen dad masaakiin oo nolol doon oo ku dhex yimid inaad inta aruuriso disho oo tiraahdo waa shabaab ku shaqayn mayso waxna ku noqon maysid taas waxay dhali doontaa arrin dhibaato leh oo adinkana aan idin anficin dadkiinana aan anficin aqlina aan noqon qofka bini aadamka waxa loo baahan intuu nool yahay inuu ka shaqeeyo wax adduunkiisa iyo aakhiradiisa anfacaya laakiin inuu ka shaqeeyo wax dhibaato asagana u keenaya ummadda uu ka dhashana dhibaato u keenaya waa aqli xumo weyn waay waxaa kale oo ceeb ah nimanka mataqaanaa sheeganaya maamulka galmudug oo dhalasho ahaan haddana dhalashaan idin nahay oo dad isla dhashaan nahay haddana wiilal yar yar oo waalid ay u yihiin inta aruuriyaan u dhiibaya mataqaanaa niman cadow ah oo dadka u dilaya takana hore iyo mataqaanaa aqli xumo hore u dilaya taas ceebay ku tahay dhalashadooduna waxba kama jiraan wiilashaas ay dhiibeen ayaga dilay marka koobaad marka labaadna nimanka Puntland hadda gacanta ay u galiyeen ayaa mataqaanaa dilay ceebayna idinku tahay arintaas waxaan u sheegaynaa dawladda Soomaaliyeed waa u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa madaxweyne Farmaajo waxaan u sheegaynaa ra'iisul wasaare ninka la yiraahdo mataqaanaa ayaan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa golaha shacabka waxaan u sheegaynaa golaha sare qolada sheegatay dhammaantoodaan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa maamulka galmudug oo uu madaxweynaha ka yahay qoorqoor iyo ninka mataqaanaa amniga mas'uulka ka ah oo la yiraahdo faqi ayaan u sheegaynaa arintaas waxay dhali doontaa dhibaato weyn oo la mahadin oo khasaare keenta oo dhinac walba khasaare ka keenta annagu hadda dooni mayno mursada sidii lagu yaqaano dadkana ma dulmiyo dadkana ma dhibo waa dad iska shaqaysata ah oo dantood dhaqata ah qof ay godob ka galeen ma jirto Puntland godob ma ayna ka galin galmudugna godob kama galin cid ay godob ka galeen ma Soomaaliland godob kama galin dadkii saasa in maanta inta la aruursho la qaado la yiraahdo waxa tiin qoladaas ee haddana Puntland galmudug ay dhiibto oo haddana ay galmudug noqoto maamul hoostaga oo ayna ahayn dad xor ah oo sharafta iyo xornimada waxay sheegi jireen waxba ka jirin maanta adeegayaal ay u noqdaan niman wax isu galay aynay jirin oo cadow ah ayna ku dilaan dadkoodii wiilashooda way kuwa ay dhalayna la mid yihiin haddii maanta cadow inay u dhiibaan keenan ayagana biri cadow ayaa loo dhiibi doonaa aljazaa'u min jinsi alcamal qofku wuxuu ka shaqeeyo heli doonaa waxaan leenahay Puntland wiilashaas kuwii hore disheena waa la idinka rabaa waa la idinku haystaa waa la idinku daba taagan yahay dadii ka dhasheen malcada kama dhalan kuwa hadda gacanta ku jirana dadii ka dhasheen waxay dhali doontaa ceeb adinka aad xambaartaan mas'uuliyadda ka timaada haddiinaan ka mataqaana ka laaban dadka aad disheena aad magdhow ka bixin iyo raali garayn aadan ka bixin waxay dhali doontaa wax cawaaqib xumo idinkana Soomaali waa idinka badan tahay kama maarantaan meel walbana waa joogtaan mudug wax yaal hadda aniga ma oga waa aqaana waa tagay wax yaal lama jiraan dad uun wareera iska aaday maahane xoolana ma yaalin xandana ma taalo ganacsina ma yaalo wanaagna ma yaalo waa ognahay 4 saac isku dishaan wax meesha yaal ma leh waxaan leenahay arintaas ha laga waantoobo dadka la dilaana daday ka dhasheen
meel cidlaa kama dhalan adinkuna dadaad leedihiin meeshaan waa caasimadda Soomaaliya oo dhan aad joogta ma jarteen kamana maqnaan karo mudug waa la iska dayn karaa oo hadda nimanka tagay hadaad wax dishaan waa la iska dhaafi karaa laakiin adigu xamar waa caasimadda kama maarantaan takanaha abuuranina ka xara abuuranina cuqaalaad leedihiin isimaad leedihiin haweenaad leedihiin culumaad leedihiin waxaad leedihiin dad waxgarada intaasaad leedihiin adinkoo intaas le maanta wiilal yaro masaakiina oo hilib gada ama baalasho ah ama kawaanla ah ama inaad huudhay gata inaad maanta inta aruurisaan aad tiraa waa dilayna shabaab waa hebel aqlina idiin noqon mayso sharafna idiin noqon mayso laydinkuna dayn maayo in laydinku daayo taas suuragal ma noqonayso kuwaad disheenna waa laydin haystaa waa laydin daba taagan yahay kuwaana haddaad dishaan kuwa la dilay ka mid noqonayaan laakiin wax badana idinkaga halaabay caqligu ha taliyo cuqaashiinu ha taliyo waxgaradkiinu ha taliyo culimadiinu ha taliso waxaad disheenna magti waa laydinkaga fadhiyaa kuwaasna inaad degdeg u daysaan dadku hadday dambi leeyihiin dawlad dhaxaa jirta waad inaad soo wareejisaan ood keentaan ood ku caddaysaan maxaad diidaa maxkamadu meeshaan yaallaan dawladdina halkaanay joogtaa inaad adiga inta wato qaalin noqoto ee adiga aad birayso hadda walaalkaan xamar ku raaxaysto caqli maaha caqli ma jaarteenu haddaad caqli leedihiin maanta laydin arko haddaad caqli lahaynna dadka dila iska dila dadku meel cidlahay ka dhasheen waxaad ka heshiin waxba iga siinina wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan mataqaanaa diidannahay oon ka cabanayno dadkii la laayay kuwa hore loo laayo kuwa hadda in la rabo in la laayo oo nool waxaan diidaynaa oo aan ka soo hor jeednaa oo marnaba aanan oggolayn in dadka lagu dilo saddexdii shaay oo ilaahay sheego shareecadu sheegto qofka lagu dili karo waxaan ahayn in lagu dilo sida orga qoora dheera in inta la soo qabsado layska dilo intaas ayaan ka soo hor jeednaa ma oggolin qofka waa la yaqaanaa shareecada islaamku waxay u dilee ay u qisqaasee ay mataqaanaa u rajmiyee waa la yaqaanaa laakiin wixii ka duwan ee iska soo qaba iska gowrac waxaasu ma ahan wax la qaadan karo qofka dilayana waxaan u sheegaynaa asaguba inuu berri dhimanayo waana la su'aalayaa waa la hor keenayaa yay maanta idin qaadin qafladaad ku jirteen qafladdiyo idin qaadin wuxuu maamul waaye dad bini aadana waaye mataqaanahay ameerikaana mataqaanahay howlahan wax ka qaba waayey oo xoog sheegtay oo nuuc walba sheegtay yaan xoogga iyo qoryaha iyo mataqaanahay faanfaanka maanta aad waddaan iyaysan qaflad inku ridin qof walba allaha ka baqo qofka uu masabidanayo ha ka leexdo qof walaalkiisa oo bini aadana oo asaga oosan xaq u lahayn inuu dembi uusan lahayn ou saaro ha ka leexdaan leenna ha ka leexdo annagu dagaal iyo fidno iyo qabalyo laga soo gudbay oo nebi maxamed buu yidhi ha laga tago waa qurine dacuuha fa innahaa mumtinna uu yidhi waxa la yidhi waa qurine ha ka tago ou yidhi ma rabno inaan mataqaanahay abaabulno ama aan ka shaqayno ma rabno laakiin waxaan rabnaa ummadda islaamka koonkan waxaa loo soo dejiyey kitaabka alleh sunnada nabiga in ayada wax lagu maamulo haddii wax la dilaa ayada lagu dilo oo mataqaanahay qofku wuxuu geysto loo qabto laakiin wuxuusan geysan inaan la masabidannin inaan qabiil lagu dilin inaan qabalyo lagu kicin inaan la dhihin mataqaanahay heer hebelaad tahayee xaggaad ka timidee halkan anigaa degana u badana maxaad ka soo doontay inaan mid dembi lahay oo dembigiisu cad yahay midaan dembi lahay inaan lagu bedelin oo aan la dhihin kanu mataqaanaa qabiil meesha uma joogee keenni dembiyow lahaya kan ha lagu bedelo saas dadka aan loo layn waa inkaga digaynaa dadka meesha jooga maamulka reer puntland waxaan inkaga digaynaa inaad waxaas mataqaanaa ka fiirsatiin inaad hawshaas ka fiirsatiin inaadan ummadda bilaash ku laynina inaadan dadka kala geynina inaadan dalka iyo dadka kala geynina inaadan mataqaanahay ummadda aadan isku dirina inaadan qabaliyo iyo balaayo dambe aadan kicinina intaasaan idin soo jeedihaynaa qoladan kale oo sheegatay maamul galmudug sheegatay maba arko anugu waxay ka shaqeeyaan ma aqaano meesha waa joogaan kamana hadlin waxaana loo baahan yahay maamul walba dadka asiga u dhasha hadday dhalasho tahay dhalashadu mataqaanaa tacriif waaye qabiilka in laysku aqoonsado waaye laakiin in laysku xumeeyo laysku dilo oo laysku qarribo maaha markii hadday mataqaanaa dadka ayaga xaggooda ka dhashay waxaa la rabaa inay ka hadlaan oo ay yidhaahdiin war dadkan maxaa lagu haystaa
dembiga ay galeen hana la tuso hebel yow diloo loo dilaa hebel yow mataqaanahay ka sinaystay ama kufsadoo loo dilaa hebel sow diinta uga baxayoo loo dilaa hana la tuso inay yidhaahdiinaa la rabo laakiin dad sheeganaya maamulaan nahay ee maamulkii ayaga lamid ahay aan la hadli karin oon waray karin waxa ay mataqaanahay dadkooda ayaga ka soo jeeda waxa ay ku sugan yihiin ama mataqaanahay qaabka loola dhaqmaya aan weydii karin anugu ma aqaano siday hadhow kuwa ayaga dhexdooda jooga ay dadka uga celi doonaan anugu ma aqaano maxaa yeelay hadday kuwan u hadli waayeen kuwa dhexdooda yimaadna waxba uma galaan umana hadli karaan marka waxaan ka codsanaynaa maamulka Puntland iyo salaadiinta iyo odayaasha iyo culummada dadka mataqaanaa waxgalka iyo shacabka dhammaan inay waxaas ka hortagaan aan ka codsanaynaa maamul yar oo mataqaanaa iscajibiyey oo aan hoos fiirin oon shareecada islaamka fiirayn oo qofka waxay ku dilayaan iyo waxay ku gafsan tahay iyo dembiga ay leedahay aan fiirinayn oo aad u malayso inay qabaliye kaliya ku shaqeeyayaan oo qabaliye kaliya eegayaan oo aad u malayso inay leeyihiin heer hebel kaliya halka degane sidaa hebel u soo dhexgeli karaa oo meesha uga muuqan karaa hadda waxaan maqlahay qabuuro magaca loo baxsho war qabuuradii ma haddana la qabyaaladaynaya oo la leeyahay qabuuraha wiil la leeyahay war waxaas wax Soomaalida iyo ummadda islaamka iyo muslimka wax u eg iyo dadka sharafta leh ma ahan shacabka Puntland ha ka hortago waxaas ha ka hortagaan leenahay maamulka sidaas u dhaqmaya ee ummadda kala geynaya ha ka hortago wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi Muuse Maxamuud Jiiso Star TV Muqdisho.